بروسسك inaad challenge garayso ama tagyiir isbedel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan ka koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way whatsoever bulshada ay ku sugan tahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaan xataa kuwa maadiga meelan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen wadankan yar Hong Kong la yiraahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba deedulna waa 24 kilomitir maxaad malaynaysaa wadan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guriga lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray adoo qiyaas wadan ciidana soo dhoofsanaya muxuu haystay wadanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadannada dunida ugu dhaqaalaha sareeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2000 wax ku dhow oo technical school isagu leeyahay bay dhaahdaan qiyaas adigu isku wadan yar oo inta leeg nin qaayida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yahay waa wadan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yiraahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdo qof nolosha challenge gareynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka talaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath an al-furas nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wasalaam 13 sanadood bay quraysh iyo intii ku xeernay diidanay 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay that chance fursada qulay uu helay ayuu dawladda islaamku sameeyay saxaabadiisii hijreeyay magaaladii u diray ducaad si hagaajisa dawladda dhan ee islaamiga dunida gadiday one chance uu helay isagoo 15 chances waayay fursad waayay hal chance uu helay buu ka faa'iiday idan qaa'idku bay yiraahdaan kow waa qof search for opportunities bay yiraahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yiraahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan tijaabi oo risks ka qaado wax kastoo nolosha ka mid ah waxay yiraahdaan cidda riskiga diida yani dhibaatooyinka cidda ka baqata horumarka ma gaadho hatta shirkadka dhaqaale shirkadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku wan iyo meelahaas ku warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxa ka dhacan waa risk midhan laakiin meelahaas waxa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku walidaalku waxa dhaca riskiga iyo profitku way wada socdaan Soomaalidu maxay ku maamaadaa barti yaqaan bari uma korodha bay yiraahdaan waa yani waa niman challenge gareynayna nolosha haddaad inta taqaanun ku warwareegtid waanad hore u soconin ma ciyaaraha ay ku tilmaamaan laba ciyaarood idin sheego macnaheedu markaan leenay fursad raadi waxay yiraahdaan guush waa laba shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaar garowga baa la yiraahdaa hadday fursadu ku hor yaalin laakiin adigu aan diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guush bay yiraahdaan waa labadaas oo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro galayo ka faa'iideynaya inaad tahay bay yiraahdaan waxay yiraahdaan waa fursad iyo muqaamara muqaamaradu jarska xornimo ma hataan sheegayna yani ninka jaska ciyaara muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaanin shatranjka ciyaartan la yiraahdo jasku waa in go'an buu qof waliba marka hore deginshiyo lama degay sida shaxdeen oo kale shaxdeen way ka horeysaa jaskoo iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degintuuku uu qoray in go'an baa askartaadiya waxa uu yaalay guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakaraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqoto maxaa soo baxaya markaas waxa ku soo baxaya intaas oo probability ihtimaalaad tiro badan askariga haddaad guurto kaasu guuri kara kaasu guuri kara kaasu guuri kara kaasu guuri kara ka alternatives tiro badan ihtimaalaad
markaas waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa jaanis jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad dhiiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa dee waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo booda hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku dayba waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhahdeen enable others to act dadka kale u oggolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liiderska badh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado markaad in cidiba ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaasi liidarka dhabtii bay yidhaahdaan waa liidarka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara john maxwell leveladiisii afartaha markuu tirinayey levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii un kursiga iska fuulay ee dee dadkuna ku qasbana inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamaya inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u oggolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxaa qabtoo midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay positioningkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey dabeetana wuxuu oggolaaday wuu delegate gareeyey shaqadii wuxuu oggolaaday inuu qofu shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay yidhaahdaan martabadiisa shanaad isagee ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shanaad labadan ba isku dar waxay yidhahdeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye nimana buu ka wada dhigay qaada nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo halyeeya wada ah oo dunida dawakhiyey furtay dunidoo dhan fishankii nebi moxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla ama bicizi casiisin aw bidulli daliilin bay ku gaadhi doontaa fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishanaa dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equipid ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhdii hore carbeed lagu aqoon ribciy ibnu caamir iyo mugiirata ibnu shucbi iyo yaqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershi iyo raggii hoggaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid waxay isagu yidhaahdaa labada commitment haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster the collaboration iyo strength others buu yidhaahdaa kuwa kale xooji wax wada qabadkana biiri
waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad shanaad miyaaba tani waa tii nami tacaawuna qawi laakhariin mumaarasada ugu dambaysa ee shanaad waa encourage the heart bay yidhaahdaan shajic alqalb aw altaqdiir waxa weeyaan dadku markaad equip garaysa ay shaqada qabtaan ictiraaf wixii ay qabteen maamuusna wixii ay qabteen ictiraaf recognize the contribution bay yidhaahdaan and celebrate the values and victories dadku markay shaqeeyaan shaqada ay qabtaan marka hore ictiraaf you done well shaqo fiican baad qabatay marka labaadna celebrate garee abaalmariyo ammaan oo abaalmarinta sii